بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta joognaa masaajidkii jaamacadda Xamarweyn waxaana keenay albaabadii oo Maama Caasha Foundation ay u soo talagashay in la saaro bulshadii iyo albaabadahan marka insha Allah wax ka dhimanna insha Allah waa haduu Ilaahay raashay balan qaaday Maama Caasha albaabadna waa kuwan waxaan ku wareejinaa haduu Ilaahay raawo wadaadkii masaajidkan gudoomiyaha masaajidka oo jaamacadda asana nagala wareegay insha Allah aniga ahay meel xaaji waxaan wadnaa gudoomiyaha Maama Caasha Foundation halkaan waxaan ku haynaa albaabadii oo masaajidka loogu soo talagalay Maama Caasha Foundation haddana waxaan ku wareejinaynaa macnaha guddigii masaajidka iyo gudoomiyihii halkaan joogiyo waa kana نوف مساجد البابدود واقوان ومام عاش وصوت القش. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. waxaa maanta halkaan ugu yimideen gudoomiyaha Maama Caasha Foundation iyo injineerkeeda Fuad khayr Allah siiyo waxay maanta halkaan ugu guddoonsiiyeen 3 albaab oo aluminium ah 3 albaab ayna ugu soo talagaleen mas'uuliyadda masaajidka jaamacadda Xamarweyne waa ka khibroonay wixii dhamaan insha Allah iyada ku soo dhameystiraysa la leeyahay waxaanu ku kacayaa yiri 375 albaabood waa inaga go'doonay gacantii ka soo baxdana Allah soo buuxiyo khayrna Allah idin siiyo annagana waa kaas ducaa ilaahayna waana wax kula idin hayna male waana ku mahadsantihiin waan idin soo dhaweynaynaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساجد كباهيدي أنت ما يكون أنت هاي بس حاجة وحياة وكلا أبهنتهين. والله وحنا أبهن هاي من دار داس إن الله يسمعكو. ما فهمت. لازم مساجد دول كان نواربنا. قد صار نواربنا. إلهي حكيس نوي ما نقول نوي لكن أنا يمكن عواي قد صار كانوا قد صارنا. إيه من دار داس عن سمينا. إلا مساجد وحنا كنا معنا كتيبة وأبهنا هاي. واقع في ولا نحن وصل تطور عكرنا. Maama Caasha أنا لو وصلي Maama Caasha أيضا سوف نسوي إن شاء الله تعالى. فرياشنا واقواس والباب هذا 3 الباب فرودي وبالله. جدي مساجد جامعة عمروينة أيضا ذكر عن Maama Caasha أنت هو أحسني بنان كان إني نوت دواشة أو إنجير كان أنا سعد سيني أدنى وحان سو ورفع فينتي ودن إنسينا إنجير كيو مانتي لجوا وحير صام كيلو سميلا يصير ليلا إذا كل أساعدين تفسير دهنا وأنا كسودوا ولكن إنجيرو كسودوا. بسم الله الرحمن الرحيم. gudoomiyaha Maama Caasha hadda ka hor aan ku sheegay warbixintaas waa ku soo gudbiyaan jeclahay meeshaan dhulkan hadda aragtay waa dhulkii oo loogu talagalay masaajidka in lagu weyneeyo wixii qiimaan waa kula socodsiiyay waad ogtahay marka sawir ahaan hadduu Ilaahay raasigana waad helay maraan dheerayn hadduu Ilaahay aan ku soo gudbinaynaa sidii aad meeshaan uga soo gaarsiiyeen masaajidka aad bay ayaan muhiim ugu tahay aad u jeceliin meeshaan loo dabado بل إن شاء الله وحن جعلنا ماشي أنا كتبقاته وأبطأ اللي غير لي وحنا كتبقاته هدو الله قدومي Maama Caasha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Maama Caasha أنا أقول هذا يا مؤذن كمساجد كأويس علي بولاي وقت ما هستنتهي البابي وانسو قارين أتى بعض ما سنتها غير على هفكسيو مشات كسوق عادي 3 أو الباب ونسو قاري وأنا كقدوني قدت كينو كيني تاريخ لو عن كل شيء عدونا مشات كسوق عادي إنه بركة إلى قوة أجر حسنات عندما نينين آيات لقتي كيتي واحد لقنا آيات لقتي كالباب كاس أنتوا تاجني هاي ولا استعمالها أجر كيس أذوق والسعودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.